Beri hore waxaa jiri jiray boqor ku caanbaxay caqligiisa. Waxa uu ahaa nin xaakim ah, waxa uuna ku caanbaxay in uu la hadlo xayawaanada oo dhan. Boqorku wuxuu lahaa shaqaale magaciisa la dhihi jiray Peter. Peter waxa uu ahaa nin daacad ah, waxa uuna ahaa mid qalbi fiican. Peter waxa uu mas'uul ka ahaa in uu boqorka u keeno cuntadiisa. Boqorka markuu dhammaysto cuntadiisa ayaa waxa uu Peter ku amri jiray inuu u keeno weel qaas ah. Peter ma ogeyn weelkaas waxa ku jiro, balse waxa uu sugi jiray inta uu boqorka ka amrayo si uu ugu keeno weelkaas. Boqorkii ayaa u yeeray Peter waxa uuna ku amray inuu u keeno weelkiisa. Waxa uuna ku dhahay weelka waa inaad ii keentaa, hana isku dayin inaad furto. Kadib Peter ayaa u keenay boqorka weelkiisa, waa uuna baxay Peter. Boqorka muu furi jirin weelkiisa ilaa uu ka hubsado inuuna qofna arkaynin. Peter ayaa maalin maalmaha ka mid ah boqorka waxa uu ka soo qaadayay weelka kadib markuu cuntadiisii uu ka cunay. Markii inta uu jikada imaanin Peter ayaa waxa uu isku dayay inuu weelka furo si uu u ogaado waxa ku jira. Waxa uu orday dhanka qolkiisa kadib waxa uu bilaabay inuu weelka furo. Waxa uu arkay mas weyn oo ku dhex jira saxanka, waxa uuna isku dayay inuu tijaabiyo. Markii uu cunay maskii ayaa waxa uu maqlay shanqar ka imaanaysa dhanka daaqadda. Peter inuu kashifmo ayuu ka baqayay, isla markii wuxuu soo aaday daaqadda dhankeeda. Waxa uu arkay laba shinbirood oo wada hadlaya, waxa ayna dhahayeen waa inaan baxnaa maanta si aan u soo raadsano waxa aan cunno. Peter waxa uu fahmayay bisada ee shimbiraha hadalkooda, waxayna ku noqotay midaas mid la yaab leh. Waxa uuna ogaaday boqorka halka uu ku fahmo hadalka shimbiraha iyo xayawaanaadka kale inay tahay maskaas uu cuno. Kadib Peter waxa uu maqlay dhawaaq aad u badan. Waxa uu soo aaday dhanka qolka boqorka, waxa uuna arkay boqorka xaaskiisa oo dhahaysa waxaa la iga xaday faraanti aad u qaali ah, waxaana ooga shakisanahay inuu iga xaday Peter. Kadib Peter waxa uu wacay boqorkii, waxa uuna ku dhahay haddii aad ilaa ay beri soo helin qofka xaday faraantigaas, waxaad noqonaysaa adiga qofka laga shakisan yahay, waana ku dili doonaa. Boqorka markuu hadalkiisa dhamaystay ayaa wuxuu ku dhahay Peter waa inaad hadda iga hortagtaa oo soo raadisaa tuugaas. Peter isaga oo argagaxsan ayuu soo baxay, waxa uuna soo hoos fadhiistay balli ku yaalay qasriga agtiisa. Markii uu fadhiistay isaga oo murugaysan ayaa waxa uu arkay hal mar laba boolo oo isla hadlayso. Mid ka mid ah boolooyinka ayaa waxa ay dhahday waxaan maanta cunay faraanti hoos yaallay daaqadda qasriga. Tii kale ayayna u sheegaysay. Peter markiiba waa uu farxay wuxuuna soo qabtay boolladii. Kadib waxa uu u soo qaaday dhanka qasriga. Wuxuu u keenay boolladii cunto kariyihii qasriga. Waxa uuna ku dhahay waxaan soo helay booladan waa inaad booladan u karisaa boqorka si uu ugu qadeeyo. Cunto kariyihii ayaa ka qaaday boolladii, waxa uuna bilaabay in uu jarjaro. Markii uu jarjarayay ayaa waxa uu arkay faraantiga uu ku dhex jiro boollada caloosheeda, wuxuuna u soo qaaday boqorka. Markii uu u keenay boqorkii ayaa waxa uu arkay boqorkii, wuxuuna noqday faraantigii boqoradda. Boqorkii ayaa bilaabay inuu ka cudur daarto Peter, wuuna raaligeliyay. Peter ayaa ka aqbalay raaligelinta boqorkii. Boqorkii ayaa Peter u soo bandhigay hadiyadooyin kala duwan, balse Peter waa uu ka diiday hadiyadooyinkii. Waxa uuna ku dhahay waxaan ka qaadan doonaa kaliya faras. Waxa uuna ku dhahay waxaan ku soo wareegi doonaa adduunka oo dhan si aan u soo ogaado waxa ku dhex jira adduunka. Peter wuxuu boqorkii ka soo helay faraskii, waxayna isu soo macsalaameeyeen. Kadib Peter waxa uu soo aaday dhanka keynta isagoo la soo siiyay lacag badan iyo faraskiisii. Waxaana uu bilaabay inuu u galo safar adduunka daafihiisa ah. Peter isagoo socodkiisa wata ayaa waxa uu soo agmaray balli, waxa uuna ku arkay 3 kalluun oo ku xiran xarig. Kadib Peter kalluumadii ayuu xarigga ka bixiyay. 3dii kalluun ayaa Peter u mahadceliyay, waxa ayna ku dhaheen abaalkaada mar uun waa kuu gudi doonaa. Peter socodkiisii ayuu sii watay. Kadib waxa uu dhulka ka maqlay boqorka quraanjada oo ku dhahayo boqorka quraanjada oo hadlayo, waxa uuna ka sheeganayay inuu faraskaas ku istaagi doono isaga iyo ciidankiisa. Balse Peter ayaa faraskiisa ka leexiyay dhankii boqorka quraanjada iyo ciidankiisa. Kadib Peter ayaa sii watay socodkiisa markay u mahadceliyeen quraanjooyinkii, waxayna ku dhaheen abaalkaada ma ku hilmaami doono. Wuxuu socdaba waxa uu maqlay cod ka soo yeeraya geedka korkiisa, wuxuuna ahaa Tuko iyo ilmihiisa. Tukihii aabbaha ayaa ka tuurayay ilmihiisa geedka, wuxuuna ku dhahayay markaan waa weynaateen waa inaad doonataan cuntadiina. 3dii ilmo oo tukaha ah ayaa dhulka ku soo dhacay. Peter ayaa maqlayay oohintooda. Kadib Peter waxa uu ku soo joostay faraskiisa ayuuna bireeyay.
hilibka faraskiisana waxa uu siiyey 3 tuko oo carruurta ahaa si ay u cunaan. 3 tuko ayaa hilibkii qaatay, balse intuuna Peter tagin ayay waxay ku dhaheen, "Waad mahadsan tahay, abaalkaagan mar ayaan kuu gudi doonaa." Peter ayaa sii socday isaga oo lugeynaya, waayo faraskiisa ayuu gowracay. Wuxuu u imaaday boqortooyo. Kadib markii uu magaalada soo galay ayaa waxa uu maqlay nin hadlayo oo dhahaya, boqorka gabadhiisa ayaa u baahan nin guursado. Ninkii guursanaya waa in uu ka soo baxaa xujooyin. Haddii uu ka soo bixi waayo xujadaasna waa la dili doonaa. Peter ayaa u tagay boqorka waxa uuna dhahay, "Aniga ayaa ka soo baxaya xujada." Boqorka ayaa soo kaxeeyay Peter waxa uuna keenay meel ay dadka buuxaan oo badda agteeda ah. Boqorka ayaa soo bixiyay faraantigiisa waxa uuna ku tuuray badda. Markii uu badda ku dhacay faraantiga ayaa wuxuu boqorku ku dhahay Peter, "Waa inaad soo bixisaa faraantigaas. Haddii aad soo bixin weyso inta badda gasho, waxaa ogaataa in lagu dili doono." Peter isagoo ka fikiraya siduu ku soo bixin lahaa faraantiga ayaa waxaa imaaday 3dii kalluun ee markii hore caawinayay Peter, waxayna u keeneen faraantigii. Waxayna ku dhaheen, "Hadda abaalkaaga waan kuu gudnay, waadna ku mahadsan tahay sida aad nolosheena u badbaadisay." Peter isagoo ordaya ayaa faraantigii waxa uu u keenay boqorkii iyo gabadhiisa. Waxa uuna sugayay in loo guuriyo gabadha, balse amiiradda ayaa waxa ay mar labaad xujaysatay Peter waxa ayna bilowday Amiiradda ayaa soo qaadatay inay 10 kiish oo kadib waxa ay soo digir ah. qaaday Kadib waxa ay la imaaday beerteedii, waxayna ku daadisay 10 kiishba beerta. Waxayna ku amartay Peter in uu ka soo aruuriyo uuna ku guro kiishashkoodii inta aan la gaarin subaxdii. Waxayna dhahday, haddii la gaaro subaxda adigoona soo xabad uu ka maqan yahay, waa lagu dili doonaa. Peter isagoo amakaagsan ayaa uu dhulka fadhiistay, wuxuuna ka fikirayay sida uu ku aruurin lahaa ilaa ay markii dambe hurdo kala tagto. Boqorkii shinnida iyo ciidankiisa ayaa imaaday. Kadib waxay bilaabeen inay digirta ku buuxiyaan kiishashkeedii intii aan la gaarin subaxdii. Waxa ay buuxiyeen kiishashkii dhammaan, mana ka tegin xabad digir ah. Kadib Peter ayaa markii la gaaray subaxdii soo kacay. Waxa uuna ku soo kacay quraanjadii iyo kiishashkii oo buuxo. Wuxuu u mahadceliyay, waxayna ku dhaheen, "Waa abaalkii aad noo gashay." Markii la gaaray subaxdii ayaa amiiraddii Peter u imaaday. Markay aragtay inuu fuliyay xujadeedii labaad ayaa waxa ay ku xiratay xujo saddexaad. Waxayna ku dhahday, "Waa inaad ii keentaa tufaax huruudi ah oo ku yaalla buuraha gadaashooda." Mana jirin qof tufaaxaas weligii gaaray, oo waayo wuxuu ku yaalay meel fog. Peter ayaa soo baxay isaga oo raadinayo, muuna quusanin, balse markii uu daalay ayaa waxa uu soo hoos fadhiistay geed harkii. Markii uu geedkii imaaday uu soo fadhiistay ayaa waxaa ku soo kordhacay madaxiisa tufaaxii huruudiga ahaa. Kadib markii uu tufaaxii ku soo duldhacay ayaa waxa uu fiiriyay korkiisa. Waxa uu arkay 3dii tuko oo uu u qali jiray faraskiisa. Waxayna ku dhaheen, "Kani waa abaalkii aad noo gashay, waadna mahadsan tahay." Peter tufaaxii ayuu soo qaaday, waxa uuna u keenay amiiraddii. Markii amiiradda aragtay tufaaxii ayaa aad ayay u faraxday, waxayna ka qaaday tufaaxii. Waxay u kala jartay tufaaxii 2 bar. Bar ayada ayaa cuntay, barkii kalena waxa ay siisay Peter. Sidaa ayayna isku guursadeen, waxa ayna ku noolaadeen nolol farxad leh. Sheekadeena halkaas ayay ku dhamaatay. Fadlan subscribe noo saar channelka, waadna ku mahadsan tahay daawashadaada. Bye bye.